السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتيدا ku xiran bartaana ku leenahay YouTube, Facebook iyo TikTok ba soo dhawaada meel kasta aad joogtaan maanta mawduuceen wuxuu daaran yahay maadaama inta badan ka hadla caafimaadka iyo caafimaadka guud shaybaarka bariyahan dambe waliba aynu shaybaarka qaawaneen caafimaadka guud u badanay insha Allah maanta waxaan doonaynaa ka hadlo mawduuca xiriirka ka dhaxeeya muuska iyo caloosha gooryaanka ka dhasha carruurta yaryar dadkeenu inta badan waxay aaminsan yihiin in carruurta yaryar uu gooryaanka ku keenayo muusku deetana dad badan ma siiyaan horta muusku caafimaad ahaan carruurta yaryar aad buu ugu wanaagsan yahay oo aad buu u fiican yahay waliba muuska aan xoogana u jilcin adaygana aan ahayn aad buu wanaagsan yahay oo maadaama uu shay jilicsan yahay dheefshiidkii calooshii wixii aad buu ugu wacay waxa la yiraahdaa hadduu adayg yahay oo muus adagu yahay hal sano ilmaha ka yar lama siin karo waayo dheefshiidkii waxyaabihii inuu khalkhal ku keenaa laga yaabo marka inaga mawduuceen waxa weeyaan carruurta yaryar iyo muuska ay cunayaan iyo gooryaankan calooshka ka dhasha maadaama ay bulshadeenu inta badan ay yiraahdaan ilmaha muus baa ku keenay kana ku keenay waxa weeye xiriir ka dhaxeeya eegin horta muusku ma keeno gooriyaan waxa la yiraahdo oo gooriyaan uu qofka ku keeno oo la oranayo waxa gooryaankan sababaya waa muus oo ilmuhu markuu muus cunay uu ka qaaday ma jirto waxa uu ka qaadaa waxa weeyaan kow muuska qofka ilmaha yar maadaama horta carruurta yaryari ay iska ciyaaraan oo ciid bay ku ciyaarayaan inta badan farahooda haddii aan marka wax la siinayo loo dhaqan waa wasakh qofka weyn ee qudhiisa muuska ilmaha yar siinaya haddii uuna intuu faraxasho oo muuskana dushiisa maydho kadibna diirka uu ka dhilo oo isagoo aan gudihii taaban oo ilmaha yar siiyo ilmihiina farihii u soo dhaqo oo deedna sidaa muus caafimaad qabo oo nadiif uu ilmaha calooshiisii ku galo haddii aanu ilmahani hore gooryaan u qabin wax alle wuxuu ku keenayo faa'iido ahayn ma jirto faa'iidun buu ka qaadayaa mayriyo waxyaabo badan oo borotiin iyo fiitamiinis ayaa ku jira haddii uu nooca dee muus caadi oo si fiican u bislaaday uu yahay oo xoogna u jilicsanayn adayg aan ahay marka muuska horta waa faa'iido laakiin badana inagoo mehradii ka soo qaadnay oo hadduu doono dushiisu isagoo sakhayd maadaama meelo badan soo marayo ayayntaynu gacmi ku qaadno aynu weliba aynu u goyna baynu siinaynaa ilmihii yara intaynu gacanteena ku qaadno marka horta dhibka ugu badan xag meelahaasuu ka dhasha waxa ilmihii yaraa qudhiisa oo dee aanad u faraxalin oo meelaha iska soo ciyaaray oo meel walba gacmihiisu soo taabteen oo isna gacmintiisii sii raaciyeyna way ku dhici karta haddaba sababta uu u keeno gooryaanku waxa weeyaan isagu ma keene waxa weeye gooryaanku inta badan maadaama calooshkeenu iyo cuntooyinka jilicsan ee macaan xoog buu ayuu maxay ahayd hooley u jecel yahay gooryaanku marka gooryaankii calooshii markuu ilmihii yaraa muus macaan cuno oo jilicsan oo calooshii tago ilmihii hore gooryaan u lahaa markaa gooryaanadu way soo kacayaan muuskii iyo wixii bay doonayaan inay cunaan oo deedna ilmihii yaraa halkaas ayuu gooryaankii ku soo kacay marka gooryaanku muusku unbuu jecel iyo calooshii isagoo ku jiray marka loogu keeno unbuu ku kacayaa ma ahine ma jirto gooryaan muuska dhex raacsan oo tegay calooshii muusaska dee hadduu muuska oo kale raagay oo muus intuu meel jilcay diirku dhinac ka baxay wax soo gaadheen way dhici kartaa laakiin waxa weeye de waa wax yar waa riir waa boqolkiiba 10 maaha waayo inagu markaynu hormada muuska hataa inta jilicsan waa la tuura marka dhibaatada ugu weyn haddii ay markaa ilmaha u raacdo waxa ka imaadeen ama ilmaha farihiisoo wasakha ama qofkan u googooy siinaya ilmaha farihiisoo wasakha labadaas bay ka timaadaa ay u raacday carruurta yar maadaama oo immunitygooda uu hooseeyo oo macnaha difaac badan oo waxyaabo badan ay iskaga difaacaan aysan lahayn waxaa dhacaysa in ilmihii yaraa si fudud uu wax yara jirkiisa soo gala saameyn ugu yeesho haddaba ilmaha markaad muus siiso haddii aad ku aragta calaamadaha soo socda waxaa dhici karta inuu ilmahani boqolkiiba 10 inuu muuska ka qaaday 90 kalena inuu ilmaha marka hore gooryaan ku jiro waxyaabaha ka mid ah waxa weeye ilmaha inay caloosha kale ay bararto ama dibiro badan caloosha aad mar walba ku aragto ilmihii aan cuntadii cunayno cuntadii diidaya oo cuntadii haddaan aan xumo kale jirin cuntadii diidaya sidoo kale ilmuhu habeenkii rafanaya ama beerka u seexanaya ama mararka qaar waxay yiraahdaan halku ilmuhu ilkaha isku lisay oo ilmihii hurdo jiraqsanaya aragto
iyada ku dheer waxa weeye waa calaamad sheegaysa in ilmaha yar gooriyaan caloosha kaga jiro. markaad xaaladahaas oo kale ku aragto, haddii aad ilmaha calaamadaha ku aragto already muuska waa inaad ka joojiso oonad muus damba siinin oo muuska aad halkaa kaga joojiso. waxaa kale oo iyana jirta inaad isla markaa dee dhakhtar la taxalluqdo oo aad ilmaha yar isbitaal geyso, saxaro laga qaado oo la baadho oo wixii laga daweeyo. intaa wixii ka dambeeyana muuska laga joojiyo. marka mawduucan waxa weeye muusku inuusan keenin maxay ahayd wale xanuunadan ama gooryaanadan caloosha ku dhasha. muusku asalkiisa hore waxaan jiraa iyadoo caloosha ilmuhu kaga jiray in uu ku kicinayo. waa taas xataa dadka waaweyn, dad waaweyn ilaa hadda aan muuska cunin baa jira oo wax cunay haddana muuska cunaba calooshaasaa la yeekacaya waa kan waa marka waa qofka gooriyaan caloosha kaga nooliyey deetana awood ma laha in uu hadhow uu muus cuno deetana uu saa ku bahalayo oo uu ku kicinayo. marka bulshada waxaan u sheegayaa in muusku una iskii u sababin haddii ilmaha hab fiican loo siiyo oo muuskii inta qofku u faraxasho diirkii ka dhilo ilmihii u faraxalo ilmihiioo nadiifa gacantiisu wadeedna muuskii oo diirkii lahayn ilaa weliba isagoo ka goos maadaama isagoo xataa diirka sare dhilay isagoo farxashay uuna u goynin ilmihii muuskii uga jarin caleentii ama diirkii sare uu ka jaray ilmaha yar oo yidhaahdo isagoo diirkii saa uga dhilay yidhaahdo ka goos. marka mawduuceen insha allah maanta intaasu daaraya waxaan rajeynayaa in dad badan ay ka faa'iideysan doonaan oo muuska iyo habka carruurta loo siiya ay saa uga faa'iideysan doonaan. muuska carruurta in laga daaya maaha haddii aanay dhibaato u keenin wuu fiican yahay waayo waa wax jilicsan oo faa'iidooyin badanna wuu keenayaa waana xagga dheefshiid ahaan calooshana wuu wanaagsan yahay. muuska kaa fiicnin waa ka xoog u jilcay ee dee waxyaabo kale ku dhalan karaan iyo ka adag ee dheefshiidka ilmaha yar dhibaato u keenaya. markaas intaas mawduucan kusoo gabagabaynayaa. waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan waqtigu ha idin wacnaado. ramadaantina way soo dhowday insha allah cibaadada ha lagu dadaalo bishii Shabcaanna waa lagu jiraaye iyadana quraan akhriska iyo dikriga iyo maxay ahayd toolay xuska rabbi ha la badiyo mar walba iyadoo la badinayo haddana bilahan waa bilo khayrka badnaa. ramadaantana ha loo diyaar garoobo. اللهم بارك في شهر شبعان ورجب وبلغنا في رمضان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.